Degmada Buur-Hakabo oo ka tirsan gobolka Bay oo waana degmo fac weyn yalaha ku waramaha intii ay saameeytay abaaro dalka ka jirta. Shiryoon isku kooyan maamulka degmada Buur-Hakabo, ururka dhalinyarada hanraabta odayaalka, xubno saraakiil iyo caafimaadka degmadaas yalan ka hadlay biilaanti iyo xaaladda bani'aadamnimo baahsan ee ka jirta deegaankaas. Gudoomiyaha degmada Buur-Hakabo Cabdi Maxamed Axmed iyo shir gudoomiye odayaalka dhaqanka aan ka horeeyay goobta ka hadleen waliba oo sheegay in degmadu muddo odoonka jartay haddana xaaladii ku sii dartay walaagi wal nisku kooy waroogi wal malle roobki muqubun beer iska dhaaf ilaa haduma meel muddo waroole biinin giliyo ya dadka teeganta hada sida la sheegay meel badan ka bada hiigli abhamd ka jirta helmisi ka jirta wal badan ka jiro cudurshada biyooda ka jira wiil may deerna kuleel hadii la horleen galahay bay osadaan hay'ado samafalka iyo injiwada may ku codsadaan lamba meel qaabilsan in degmada Buur-Hakabo hal deeran xaalad xum oo xun hadda ciyaal badan dharaaran sidii hadda ay la sii sheegay alhamdulillah jadaa'id alhamdulillah ya meel hagali waa wal badan ka jira shuu biyoodna ko khasbiyi biilaanga jirta dibku ilaahay yeeshaan هدي نبكي لها هيشان سلوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب يا إلهي نبعت نمنك فتنة قبيالك حسين قد بيان اسك إلاليا شريد يولين كديانا يا إلهي فتنة قبيال وسلي فتنة مكدياس يا أم الطالح والصالح فإلهي مسيد كجير إكم فتنة صوبي ورزق الياسر إلى القرآن شيء رسولك بس هذا يا أم الطالح والصالح واتقوا فتنة لا تصيبنا فتنة. gudoomiyaha arrimo bulshada degmada Buur-Hakabo Axmed Cabdullaahi iyo dhinishay usuuna hay'ado samafalka ku eedsaday intii oo hadeersiyan gargaar bani'aadamnimo. maamulkii may intan ku kulubnay degmadii oo majir abaara jirta hoolayanta ka baabahaya hay'ado samafalka kulay meelanka baahanya oo tabartiyo iyo aragtida wadanku qabad koraan intii ku qabadaan. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. gudoomiyaha maamulka degmada Buur-Hakabo Cabdi Maxamed Axmed iyo gabagabadii ka hadlay kulankaas xaaladda degmada iyo sii galahayd waliba waana yeeta xaalad la ka deeriyay dhammaan inta fadhiyada malaagida rag mas'uuliyiinta inta fadhiya madaxa caafimaadka degmada ka sareey oo inta fadhi salaamantiin. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. kulanku geeg way intan ku gobanay baaha badan iyo ka zaa'idi degmadii baahada badan madiya ka zaa'idi walon lay qarsadaan in inagan iyo inta ku kulungni wali degmada ka jiran in uu sheegna degmada baaha badan ka zaa'idi roobkii yaraadi maadaama dartis wartiinka dambeeyay biiga jiray warwiinta war dawladda la reed dadkii ka saan waa ka saan dadka kalena way sheeganay shalay ma darad iyo walay biiga yar oo ka dab ku ka dhiyaan iyo anka dambeeyay way fadaana in dad badan fareen un andirna hay'adaha samafalka dawlad goboleedka koonfur galbeed maamulka mas'uuliyiinta degmada ha ka jeedaan oo anka sareeyaan dalkii dibid meel alla meeli roogan way fareen diraan in degmada Buur-Hakabo baaha badan ha ka zaa'idi biilaan ka jirta iyo in sheegan dadka baadi ha guuran Buur-Hakabo ha ka roodan oo baahada dartiye Buur-Hakabo dadkii horaan roogin iyo hamar aan guurayaan siyo oo kaamamkii email waasan seedan marka way baag in sheegan in hay'adaha samafalka Buur-Hakabo roogan sida in joob badan ka shaqeeyaan way fadaanay in hay'adii oo sareeyay iyo baahadii degmada ka jirta in aan gudbiyaan iyo ka codsadaan rag badan inta fadhi in joowida ka midlayaan way kala siin sheegan Buur-Hakabo el gaameed ama riig ma lahayn hordhaanba war dawladda ka sareeyay dadkii gordayaan degmada ka jeedaan oo dalkii dibadii roogan in wartiina shalay ma daraad biyoojeen ka dambeeyeen baahan horta liin abuurdi iyo dadkii biyo laakiin dadaalkii bani aadan yar noofada in wali baaha ka jira degmada una qarsanama in banaanka hadhigno waan geeg banaanka hadhigni way ku osdaane odkaana lanki dheeg in Buur-Hakabo biyo la'aan ka jirta raashin la'aan ka jirta jirida oo la raw helmesi la raw in ka dareeran
والبسبسة ولا راو نوربان أرن إني كدريران إني شبن بيوت كنا تاك بلاو دي سد هقف يون كجير يدين يعني شيئا way kala fadaane dadka haki jeedan buuraka oo dibid roogan amba dalku roogan mas'uuliyiinta kamid ah buuraka baahadaas ka zaayidi oo kana ni dheegdan in sidii wala qobod fadhi ka talgalan ee fadaan assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh buur hakabo oo aan lahayna elbiyood garoon diyaaradeed xarumo caafimaad oo tayle ya xaaladun koyti agabadka sii nagadahayd Sauda Cali Maxamed Saudatul Xilwa warteelka Arlaadi beledka Muqdisho